Ku soo dhawaada channelka Somali Bitcoin. Channelkan waxaan ka wada hadlaynaa xagga cryptocurrency-gu iyo Bitcoin-ka maraya maalin kasta. Channelkan waxaa lagu talagalay dadka af Soomaaliya ku hadla adduunka meel kasta ay joogaan. Haddaad channelka ku cusub tahay, like iyo subscribe taabo si qofka lagu faa'iidaysan karo. Maalin kastana video cusub aan soo duubnaa. Aad iyo aad ba mahadsantidiin. kale saa dhawaada maanta waxaan joognaa companyga Forex Live baan joognaa oo ka sheekeynaysa dhinaca Bitcoin iyo xaggu marayo. Marka maanta headline-ka waxa ugu sareeya waxa lagu leeyahay Bitcoin technical analysis bulls might be given up soon. There are times when the reward versus risk itself material trade idea. Marka today daily candle with closing only with approximately 4 hours is now showing sign the bull are failing to break the percent channel to update following this. Marka waxa lagu leeyahay bull run waxa weeye markuu wax bilaamanayaan markuu Bitcoin soo noolaado oo bushkareynayo waxa lagu leeyahay xaggan waxa la filayaa inuu 50-50 in jirto inuu bull marketku inuu kacayo iyo inaanu kacayn. Laakiin marka waxa way yiraahdeen waa la iska yiraahdaa markasta saan filayo saan sheegayo anigu experience marka la eego waxaan waa imka ku jira dhinaca correction-ka oo yara dhacay. Marka taas wuxuu dhacay economic xaggu marayo taas kadib markuu ka saanolado economic fiicnaado Bitcoin ay joojinaysa ma jirto. Bitcoin waxa weeye waa new technology weeye waa xamka update oo systemka oo marka la arko dhinaca lacagaha iyo marka waxa la soo dirayo cid waa wax cusub oo internet ka dheeraynaya weeye. Marka waa xamka aad iyo dadku way u bushkareen u doonayaan weeye xaggan dhinaca Europe. Marka waa maanta chat ku noqonayna baan eegana xaggu maraya maantana. طبعا حتى chat-ka waa kan dad channelka cusub tahay like iyo subscribe taabo si qofka maalin kasta uga faa'iideysan karo. Maanta waxa la leeyahay Shiba Inu oo naf aan ku jirin baa maanta adkaatay oo 13 bii marayso 22% kacday. Marka waxaan oo dhan imika waxa la been laga faa'iideysto waxa maray waqtigii imku soo noolanayay. Maanta laga yaaba 3 bilood kadib waxaad soo ran doontaa waxaan waa qaali miibsan karo. Marka imku wuxuu marayaa meeshii ugu fiicnaad buu marayaa hadda la arko. Bitcoin wada la eego waa ka Bitcoin waa ka isbuu aad buu kacay wuxuu kacay waxa uu leeyahay 1% u dhow. Dad videoga hore u daawatid last week waxa intan 20 kun buha. Marka in badan baad arkaysaa oo kacay. Ethereum baad arkaysaa 1300 buha wigi hore. Waxaanu dollar ma waa pound weeye. Marka waa British pound dollarku laga adeegyahay. marka ma aragtaa waxaan waa xamka kacayo inuu ma joojinayo dadka marka arkayo wax isleen waxaan sameeyaa marka dadka ugu yaraan waxaan iibsadaa combination haystay waaweyn ba meel galiya si systemkooda ugu dheereeyo marka especially Ethereum-ka marka marka chat-ka waan naga eegnay waa uu saafiicnaanaya uu saakacaya haddana inoo sanadka ka hor wuxuu ahaa inta sumiray marka imika hadduu inta nusoo dhacay imika anaga waa nasiibkeena marka marka waxaan imika wax saakacaya saan noolaanaya dadkuna waa very popular dadku aad bay ku iibsanayaan marka aan ku noqono chat-kii waan eegnay aan ku noqono article kadib aan akhrino hadda channel dadku cusub tahay like subscribe tab si qofku uga faa'iideysan karo maalin kasta waxaan soo duubno waa kan Bitcoin oo ugu sareeya currency dhan oo dhinaca technology-ga imkana ruushka ku daynayo kule waxaan keenaynaa baa la yiraahdo digital ruble marka digital ruble waxa weeye waa Bitcoin oo kale laakiin kan uu quseynaya ruushka marka ruushka ma kan isticmaalaya marka waa la isku dayanaya imka or Central Bank Russian plans to begin the comprehensive implement of the digital ruble 2 years from now according to paper dealing. Marka laba sano kadib iminka waxay doonayaan inay functionku inay isticmaalaan ka marka xagga lacagtooda isticmaal lahaayeen waxay isticmaalayaan lacag technology oo la yiraahdo digital ruble online ka wax kasta laga bixinayo iminka marka dukaan qabaysid waxaad ka bixinaysaa kaarka deed baad taabsinaysaa marka iminka xagga uu lacag caadi ka qaadan lahaa lacag digital u qaadanaya marka waxaan waa wax imka wada koraya waa imka dhinac kastaba waa very popular meel kasta joog waxaan la socdaa qofku waxa uu akhriyaa article-kan oo hoostan ku soo qorayso qofku akhristo asaga faa'iideysan hada channel-ka cusub tada like subscribe tab si qofku waxaan akhri karo uga faa'iideysan karo waa mahadsantii waa nabri hadana